بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصحابي ميل كستا جوجتان iyo si kastaad noo daawanaysaan. magacaygu waa Axmed Saliim. Channelka daawanaysaana waa Saliim Somali TV. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar oo asxaabtaada la wadaaga. qisadii wiilkii shaqo doonka ahaa. wiil dhalinyaro ah ayaa shaqo u doontay kambani ku yaalay xaafadiisa. markii uu tagay kambanigii waxaa la weydiiyey kuma ka bixin jiray fiiga ama lacagta iskuulka. wuxuu yiri waxa iga bixin jirtay hooyadaya. maamulihii kambanigaasi ayaa ku yiri dib u laabo xaafadda taga, waxaad meyrtaa ama soo dhaqdaa gacmaha hooyada. wiilkii dhalinyarada ahaa ee shaqadoonka ahaa ayaa dib ugu laabtay gurigiisa. markii uu tagay wuxuu ka codsaday hooyadiisa in uu gacmaha u meyro. hooyadiisa way ogolaatay oo waxay tiri okay. markii uu sidaa u guda galay inuu meyro gacmaha hooyadiisa wuxuu la kulmay dhibaatooyin ka soo gaaray hooyadiisa. dharkii ay dhaqi jirtay si ay u bixiso fiiga ama lacagta iskuulka heerka maanta uu taagan yahana sabab u ahayd inuu gaaro. wuxuu la kulmay duuduub iyo nabro aad u damqiya mar walba uu isku dayo in uu meyro gacmaha hooyadiisa. wuxuu dhaqay dharkii ay dhaqi jirtay si ay u kabto lacagta iskuulka heerna ay u gaarsiiso wiilkeeda. wuxuu meyray dharkii u haray oo caado u ahayd hooyadiisa inay xaafadaha ka soo dhaqdo dharka dadku ay u baahan yihiin in loo dhaqo. wuxuu dib ugu laabtay maamulihii kambaniga. wuxuu weydiiyey maamulihii maxaad soo baratay shalay. wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu yiri waxaan soo arkay dhibaatada iyo rafaadka hooyaday ay u martay si ay mustaqbalkayga u dhisto. maamulihii kambaniga ayaa ku yiri waynu ku qaadan doonaa oo qayb ayaad ka noqon doontaa kambanigani. wiilkii dhalinyarada ahaa waxaa si isku mid u soo dhaweeyay shaqaalihii ka sarreeyay iyo kuwii ka hooseeyay. shaqaaluhu waxay ahaayeen kuwo howlkar ah, hawshoodana si wanaagsan u qabsada. wiilka dhalinyarada wuxuu ahaa mid aad ay u jeclaayeen dhammaan shaqaalaha kambanigaasi. allaha fahansiiyo dhalinyaro badan in ay mustaqbalkooda sida ugu wanaagsan ay u qabsadaan, ciyaar iyo meelo fadhina ay iska daayaan. allaha dembigooda dhaafo hooyo walbo oo u soo dhabar adeegtay in ay dhisto mustaqbalka ubadkeeda. allah waxaan weydiisanaynaa in hooyooyinkeennii dembigooda u dhaafo. waanaga intaas qisadii wiilkii shaqadoonka ahaa. intaan ku kulmeenno warbixin kale oo xiiso badan, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar oo asxaabtaada la wadaaga.